maalin wanaagsan jaalayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha sooyaalka abwaanada Soomaaliyeed maantana waxaynu wax yar ka taabanaynaa walow aynaa ka gungaari karin gabal yar oo ka mid ah sooyaalka abwaan Cali Jaamac Duule Cali Dhagfiin waxaa hubaala haddiiba aad maqashay magaca Dhagfiin inuusan dhagahaaga ku cusbayne ee aad hayso horin ka mida gabayadiisii heegada gaaray abwaan Cali Jaamac Duule waxa uu ku dhashay gobolka Doollo ee dawlad deegaanka Soomaalida xilli ku qiyaasan 1947 abwaanka waxaa dhalay nabadoon Jaamac Duule oo caan ka ahaa gobolada Doollo Mudug iyo Galgaduud intaba Jaamac Duule waxa uu ahaa garyaqaan xaajo walba u geed fariista waana tan keentay inuu noqdo horelagee oo idman hawlaha beeshiisa iyo ododaagtii goboladaas ku dhaqnaydba allaha u raxmadee abwaan Cali Jaamac waxa uu ahaa da'yar ku hana qaaday hirarka suugaanta waxaana asagoo yar gacan ka taagay kuxushaagii iyo gabyaagii suugaantu guudka ku caddaaday abwaanku waxa uu horaantiiba noqday horjooge aan laga daba heesin oo waxa uu honati ku ahaa heellada dhaantada waana halka uu ka bilowday horusocodka suugaantiisa hilin kasta ku baahday abwaan Cali Dhagfiin waxa uu leeyahay suugaan seeraha caadi ahaanshaha ka talowday waxa uu ku sarreeyey salaynta taaganta iyo saadaasha su'aadanta oo ah surinka ay uga beereen raggii ay sinaayeen dhowradnimada dhumucda suugaanta iyo dhowr kale oo isbiirsaday buu abwaanku judhiiba uga dhex baxay loodkii lakacadinka ahaa waana halka asagoo yar ay iska haleeleen hormuudkii halka sare ka joogay martabadda gabayga ee geyga ku noolaa xilligaas u soo shaabixidda figta sare ee abwaan Cali Jaamac waxaa lagu sheegay inay ahayd markii uu u banbaxay ka jawaabidda gabayo culculus oo ka yimid qaar ka mid ah foolaadkii farakutiriska ahaa ee maqaamka gabayga ku maamusnaa oo aan ka xusi karno abwaan Jaamac Cabdille Cigaal oo loo garan ogaa Jaamac Orshe gabaygan oo u muuqday in abwaanadu ku faaqideen wax la xiriiray cilmi falaga laakiin sarbeeb ahaa waxaanan ka soo qaadannay tuducyo kooban waxaa bilaabay gabayga abwaan Jaamac Cabdille Cigaal Jaamac Orshe wuxuuna yidhi adduunyada wax badan fiirso waa eriye fakarigu dhacwaayahan ka talo waa ku fooraraye fulayguna hadalka kama jeedin karo meel fagaaraa ee fankeena ii dadbeen gabayadii fiicanaan jiray haddii aan foorariyo oo aan sidii farow u raadgoobo fahmadayda kama keeni karo macalgad fooddeed fanna kacawdi sannadani waa faallo gooniye fuulka isku soo jeeda iyo filinka ii muuqda quraanjada isfeedhiya dafada miduuba geed fuushay faraacida horay u soo kacday oo dirirka food saartay fufka cawsha daaqaysa iyo farowga gaadahaya fiidmeertan ba'layda kale fahantay xaalkooda iyo ururka meeshaanuu fadhiyey dib uga sii faagtay carbal maanta meesha ay fadhido furo ninka u keena halkaa markay marayso gabayga oo sarbeeb ahaa awgiina nin dhaqaajiye la waayey waxaa caynaan ka qabsaday abwaan Cali Jaamac Duule wuxuuna yidhi jaamacow fartiintaa dirtay ood firin u sii dhiibtay amaad cali afyare feeni tidhi faahim baa tahay fagaaraha ninkii ka cabsada iyo fulayga loo diiday fufka cawsha daaqaysa iyo farowga gaadahaya fiidmeertan ba'layda kale fahantay xaalkooda iyo ururka meeshaanuu fadhiyey dib uga sii faagtay fasalkaas la yaab kale ninkii dhab uga faallooda fidna uu doontay weeye hadduu falag la heehaabo feermeed dabini inaad ka tahay waa la furayaaye la isfahan Jaamac Orshena waa uu ogaaday in wiilka laqankaahi uu xaajada fahmay wuxuuna yidhi Orshe haddii gabaygu faa'iido dhaloo laguna foosahayo firin iyo afyare tiriye iyo faarax iyo nuure lafuhu markay kala firdheen oo figni laga waayey afagaalna ay ugu farxeen fufta ina xayle markii uu cabbaarku isfasaxay raqana foorjoobay toddobaadyadiina ay fajiceen xaybarna faajoobay faruur cirir markii ay socotay oo saxalka soo fuushay sacawadana furinta uu lahaa feere uga leexday fasalka iyo foorida baxdiya fiinta demi weyday nin firaash ku seexdaa ma jiro amase foormiige inta hadalku feeraha ku jiro yuu fiirsii leeyahaye fool baa muuqanaysee sharday dhalid ku fiicnaato faruuryahaaga anigoo la dhacay kuna fayoobaaday fasiraadda waafiya anigoo fahmay oo qaatay faallada su'aashaha ii tiri cali haddaan fiirshay inta falagu meermeerka yahay kuu fasixi maayo abwaan Cali Jaamac Duule naxariis waarta allaha siiyee waxa uu ahaa afyaqaan aragti dheer iyo marle arag soo maray Soomaalida abwaanku waxa uu ahaa geelley haddana waa filsoofar xerada geela kaga faallooda fariimaha dunida ugu muhiimsan waa kan abwaanku
asagoo faaqida haya hitlerkii mar dunida gilgilay iyo kibirkiisii baanaa halkuu ku dambeeyey wuxuuna yidhi qarni baxay hitler baa isbiday boor saraata bal buraanburkiisiiyo siduu kibir u baadsheeyey ilaahaygii ifka u soo baxshoo baawurka u yeelay adduunyada ka bayr buu ku yidhoo goobo boos kale basarkaas markii lagu arkay oo biladhan loo kaasay oo baarsalaax loogu waday uu sabanna boolaystay barqaweerar baa lagu dhuftoo baaba'ba u haray meeluu biirshay ruux ogoo ma jiro bilkaydu waxaan gabayga baydkaa u fura amaan u beegsiiye amaan buugta taariikhda hore bar uga sheekeeye hadal buundadiis waa runtooda uga bareedhaa anoon badin anoon bi'in markaan boqonta soo taabto qolo buux kaladhaan rabaa inaan u baaqaa waa hagaag weli waxaynu dhex mushaaxaynaa gabayadii abwaan cali jaamac iyo dhacdooyinkii ku xeernaa wakhtii ay ku beegnayd oo dagaallo sokeeye ka curteen geyiga Soomaaliya buu abwaanku tiriyey gabayga uu dhirta u garnaqay kaasoo ujeedkiisu ahaa dhaliil ka dhan ah kacaankii hogaaminayay dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo lagu xaglinayay inay siyaad barre abwaanka isku beel ahaayeen abwaanku wuxuu ku hoga tusaaleeyey gabaygiisa sida loo kala dhaqaaqay oo meeshii hiil iyo garabba uu ka sugahayey ay madaxda kacaanku wixii nacafiyana isxijisay dhibta iyo colaaddana ay shacabka u daysay isagoo tusaalaynaya abwaanku sida Soomaalida u kala dhaqaaqday loona kala aamin baxay wuxuu yidhi haddii dhirtii khilaaf kala dhex galay oy kala dhaqaaq joogto haddii dhirinirkeedkiisii dhammay oo keligii dheefaystay mid kastooo dhaliyaystaba hadduu dhibic ka siin waayey hadduu dhagar khiyaanaa ku wado lebigii dhowrahayey dhuyuciyo galoolkana heshiis soo dhex mari waayey dharkaynkana faqigi laga qarsaday lagana dhiilooday dhaluugguna asagoon hadal ku dhicin yaab la dhaygagay higle inuu dantiis u dhuutiyo oo dhinac kale u leexdo dhaaniskiiyo ciyaaraha ka haro dhalowda yeeraysa dhibla'aan bannaan xaatiyo oo dhegi cidlaa xaarto ka dhex baxo raggii dhuunta jaray dheehadii nebiga ma dhammaahsan yahay joog muxuu taalo dhugan waaye ka sokow farshaxanka curinta abwaanka oo aad u sarraysay haddana tilmaanta uu bixinaya abwaanku ee ku jirta tudaca aynu soo xigannay waxay muujinaysaa sida eexaysan oo kacaankii dalka ka telinayey uu la dhaqmayey bulshada Soomaaliyeed qaasatan kuwa loo tiirinayey inay isku hayb yihiin isagoo sii wada abwaanku iftiiminta cadaalad la'aanta kacaanka ee keeyaha sarbeebta ahna isticmaalaya wuxuu yidhi hasha sadhiilka laga buuxiyey dhaqayadii joogta ii soo dheelan mooye hadduusan dheef ka helahaynin inuu dhaafo dhalandhoolintiiyo dhihinku raaceeda ka dhasiigo dhaxan seexadkiiyo dhowryo golaheeda u aqoodo dhiidbaal shardi leh dharag rag dhowraysa ma dhammaahsan yahay joog muxuu taala dhugan waayey sida ka muuqata meerisyada gabaygan dawladdii kacaanka waxa ay colaadi kala dhexaysay dawladdii dhargayga ee Itoobiya taasoo shacabka ku dhibaatayn jirtay xuduudaha kuwaasoo aan ka helin dawladdii Soomaaliya cudud iyo caawimadii ay ka mudnaayeen abwaan cali jaamac gabayadiisa qof walba yaqaan ee Soomaalida ka baalgaaray waxaa ka mid ah gabayga Sodonley oo uu siyaasadda Soomaaliya ku jeexjeexay soona baxay 1979kii markii taliskii kacaanka iyo jamahadaha dagaalkoodu bilowday sidii uu yirina xaal noqday 30 sano kadib iyo wixii dhacay iyo halka ay maanta joogto bal dhagee waa kane baryahan wax la iskuulmo loo leedaa jira welina leexii waa soconaya luumihii baxay oo al'aana lurkii taagan yahay laba liskiisii goortii riyihii laga luday iyo lo'dii geeliiba isaguna labeeloobay oo luqunta soo dhaafay ligligyada qumbaha lagu dhagay oo liqidda loo diiday oo niyiri laf baan gelin haddaan luuban kari waayey nina yiri inaan la dhaco way igu laasimatay nina yiri in lagu loo fariyo labid ma doonayo nina yiri luqashaan rabaa laabtii bay olashay nina yiri shalaan liid gasho laaqasho u waayey nina yiri labeenta aan marsado lahanka jiidaalka nina labada low soo adhigtay laambadna u daartay nina yiri biyahan lowr lahaa lulashadii doogga nina yiri lug baan daajin jiray meel limaad badan nina la yiri laboodkan ku daray libinta soo hooyey lurtaas qulucda miilaysan oo qoloba laacayso nin weliba soo liicin yiri yaadan liid noqone siyaasadda ninkii liilbato ugu libroonaada luqmaddaas markuu fuuqsado shaarbada leefo 60 sano sagaalkoodii kala lowlowbay noqon loxod iyo xabaal way ku sigan inay u luudaan wax sadaran libaax kale inuu laayo cod helo 10 kuwa laciif wada noqdaan laqana gaadaa
laakiin dabamaryo lagu dhuftaa licib la saaraayo leyskana xariiq laga marshaa qalinna leefaa waryaa dhaha intaa lala tihiin talaha loo laabto iska daaya laakiinta badan yaan dib loo lumine labkana daaya geeddiga niman liicin baa wada intaa markaynu kaga soo tagno gabayga Sodonley badweynta suugaaneed ee Abwaan Cali Jaamac waxaa ka mid ah gabayada caan baxay ee la yiraahdo gabayada xabsiga kuwaasoo ah gabayo aad loo yaqaan ka sokow inuu abwaanku kaga cabanayo xarigii gardarrada ahaa ee dawladda militariga abwaanku kula kacday haddana waa kayd suugaaneed oo eraya afba laga baran karo gabayga koobaad waa kan uu abwaanku kaga warramayo dhibaatadii ba'nayd ee xabsiga laanta buuro uu kala kulmay wuxuuna yidhi iska daa nin ciid marhayo ciido u muuqdaane codriyaad dhegaysanahayay cawshi gooh badan cosob iyo dhul doogla u baxoo caws kashkaashaday kaasu waaba ciir fiiqsi iyo caadigii hore cawo iyo nasiib baan waqiis cidi ku gaaray naagtiisii ninkii cayriyey ooy camal la guuraysay ilmo yara cuuca leeyihoon ciidow u qaadaynin arigiina laydha cuskaday oo cararay oo goosmay carruurtii kalena caaniya biyihi calaf ka dhawrayso meeshuna cidlihii oomos tahay oo laga carraabahayo oon cunugyo waaweyn lahayn curad uu xaarxaasho caddib inuu qabuu moodaya cayd samuu arag ictibaara waa jeel lixdiis lays cabiidsaday culaabtaan rabbi oo naga dulqaad caadil baa tahaye nin ceel dheer ku dhacay sabab rabbaan ciidula yaabayn meeluu cuskada waayey oo horay u sii ciiray isagoo cardiiqsamay ad kurtigiis cad iyo jiri mooddo oo dhaladu caanaha tahoo ciidda qubanayso codka karila laga soo baxsho culummo loo keenay dhakhtarkuna cajabiso ula go'ay callirrada gaaray calwasaaday habartii dhashana carartay oo booyday caddib inuu qabuu moodaya cayd samuu arag ictibaaro waa jeel lixdiis lays cabiidsaday culaabtaan rabbiyuu naga dulqaad caadil baa tahaye cadrad gabar wiil lagu xidho coodkii laga qaatay isagoo carruusoo aroos loo ciyaarahayo ka caniinay oo jiifsadoo ciduu haan waayey ayaduna caddaysoo tidhi caynaddii ma dhaamo caddib inuu qabuu moodaya cayd samuu arag ictibaara waa jeel lixdiis lays cabiidsaday culaabtaan rabbiyoo naga dulqaad caadil baa tahaye cirkaa danab ka soo dhacay ninkii caashi loo geliyey carruurtii iyo naagtii ka dilay arina ka cayrteeyey cascasaadka waa bari kafniin wadacad soo goostay meydkiina layska cafiyo ciidda lagu xaaray caddib inuu qabuu moodaya cayd samuu arag ictibaaro waa jeel lixdiis lays cabiidsaday culaabtaan rabbiyoo naga dulqaad caadil baa tahay waa tahay waxaa jirtay su'aal ay weyddiiyeen raggii xabsiga loogu geeyey taasoo ahayd cali oo meeshaan waxaa lagu soo xiri jiray niman xoolihii dawladda musuqmaasuqay iyo siyaasiyiin arrimo siyaasadeed lagu hayso balse adigu wiil yar oo caato ah baa tahaye maxaa lagugu soo xiray maandhow cali jaamac wuxuu ku jawaab celiyey gabaygaan nin xuduumiyey oo naaxay oo xuluskuu weynaaday karxaasoobay oo dhuubtay way kala xanaaqaane xinku wuxuu ka dhacay oo isku diray nimanka xaasoobay dhurwaa xagala haystaa kan kale xubin u goyn waa xuukida baruurtii intuu diribta xawdahayo xusulmududka goortuu hurdada xarabsadoo jiifo xuubka geed saarsaaran iyo xididadu xooray yuu xagxaganin buu leeyahay oo iska siixray xidigle iyo taliyaa naciya xariglahoodii xaaddooda naarto cunto ima xanaanayn badda xoogga weyn oo rabbigay ka xajiyoo raaray hirka xayga aad mooddo iyo xoolo daaqahaya xawliga intuu soo gudboo xeebta soo jebiyo ilaahay xargaha uga furo xamar wixii joogay way sii waraysteen ayagoo markaan weyddiiyey laanta buuro khaasatan wax gabaya oy leedahay oo tirsay ma jiraa waa nacam buu leeyahay balaayo aan kaa qoslini balaayo maahan asagoo leh ayuu tixdana halkii uga mariyey haddaan waayo arag baxosh noqday badan la sheekaystay iska daa barbaarre haddaan boqol jir weyddiiye amaan anigu baylood ku maray baallaha dunida badda iyo berriga meel rabbigay beled ku suureeyey oo bashar iyo khalqi lagu askumo aadmi lagu beeray oo laanta buuroo kalea weli ma soo beegin markiina laka kaa bixitinsho oo aan beri ku moogaado balaaya meelaad joogtaba timid boosna kaa dhigata buunkii geesku kaa qayliyoo bolosha ciiddaadu bariiso iyo hilaac iyo mir iyo maalin curad baa lagaa mari rag soo bi'isay oo geel adeeg boohin kaga keentay abwaan cali jaamac duule waxa uu ahaa nin geeley ah islamarkaana aad u jecel geela kolkaanna aan idinku duwo gabaygii xaafay guun carradu waa biyowaa abwaanku reer ma leh waa dhudub iyo geelo oonguul ah xaafay waa hal uu rajo ku soo koriyey
waxayse ka mid tahay geela riman ee sannadka u dhalahaya. Amin dhexe maray ahayd ayay xeradii ka dhacda oo oodii jibaaxda. nin la yidhaahdo Faroole Xasan Barre oo ay rafiiq ahaayeen abwaanka ayaa toosh ku ifiyey. markaas buu hadalna raaciyoo yidhi, cali jaamacow balaayadan dhaca badan maad yarad iskaga bixisid. cali dhagfiin ilaa waa nin ilaahay hibo u siiyey golokafuule wuxuu halkii ka tiriyey gabaygan. ayadoo xab lagu gaafay oo lagu xayaabeeyey subaxdan xubnaha soo qabtay oo ii xagaa dhalatay xamdigii aan ku laablaabtay baan sii xasuusnaa. duduma xagad markay noqotayoo xuurtu hoo urudhay ayadoo xun bay hooyadeed kala xayaabeen. xeerihii haruubkaan rabaan xoor ku siin jira hadday xoomisoo dhaysisay xog uma haysaan. xabbad igu dhacdoo iga taal xabadka meeshiisa xiniyaha isgoo iga daran xero ka soo saar. xaadfay guun intaan bixin lahaa xulantadii geela xubna toosanley xayskii hore xumo la laafyootay xaafaa xaquuqii ku dhacay xaalufkii sabanka ayagoo digsigii xaganayoo dhab u xarrumahayo oy xamaamadii kaga tagtay xan yaroo ariya ayana xarig labaah maan heloon kaga xalaalayn. goobse lagu xarbiyey maalin ay tala xalaaraatay sidii faras xakamihii wato oo nacaskii soo xooray xajin waayey goortuu karbaash kaga xanaaqsiiyey. xarawaha u leylagsadoon xagalulaadaynin waa ayaga xaliimooyin aan xagar ku oodnayn buu yidhi. cali jaamac waxau ahaa nin aan gefin erayga hishaartiisuna inta badan way ahaan jirta. waxaa la sheegaa in abwaanku gabayada qaar uu isku warramay laftiisu, waxaana ka mida gabayga la yidhaahda samir oo abwaanku tiriyey 2 habeen ka hor dhimashadiisii. waxaana gabaygaasi halka ugu dambeeya odhanayaa, ilaahu dembigayga dhaaf midaan aakhira iga sii daran. inkastoon digniin badan helay oo lay dareensiiyey nimaan samir isdeeqisiinin oo daalayaana adduun didahayoo roorayaan dayda ku hayaa. luqmad dhuunta loo diiday baan soo duuleeya dabaan ii hulaaqmaynin baan daman la saaraa. ducaan layga yeelaynin baan sii daldalayaa. daar baan rabaa inaan ka mudo meel disheetaa. waxaan daba socdaa qoom baloo duur cidlaa taga. dirkoo kale haddaan xoolo nool dabagaloon raaco anigoon diicin aakhir waa iga dibboodaa. dugaaga ba iga cuna tii dhashiye dalawadaydii. haddaan dayrinkaygu ku gado dayrrimaad lacaga daraad waxaan tirsaday 2 habeen kama dambeeyaan. haddii dahab halkaa dhooban yahoo dixii haa mooddo markaan doonto meeshii la dhigay waa daleel maran. haddaan doobi weyn soo cushoon dabac ku soo maalo anigoon dibnaha saarin buu docoo faniinaa. dadka ruuxa ii jecel haddaan diriq yar weyddiisto isagoo wax ii diidin baa qulub dab siiyaayo waxaa lagu dishaa qoom below laygu soo diray. haddii damaci galo guurku waa waxaan la daynayn. gabadhaan dannii inaan la tago oo dadab u meegaarto waxaa iga dalfiya xawligaa duulal ii qoran oo shayddaan duqoobiya ibliis duufsadaa hela. daruuruhu markay da'ayaan dirir sagaalada gibilada dushaydaahu waa kala dareeraan ilaamaa ay durkaan oo durkaan daadan mahayaan. haddeeraa anoo daalay oo dar alla xurtooday dibir mee cidlaahoo bannaan dan u yaxoobaayo wax dambeeya mooyee ku qaday. dooddidii hore ee ilaahow dad iyo maali sii deeqsi baa tahay ee dembigayga dhaaf midaan aakhira iga sii daran.